maahan arrin lagu farxo in subax kasta aad soo toosto afkaaga soo shiiro, balse waa arrin ay dad badan ay kula wadaagaan. Haddaba ha walwalin, dadka inta badan mar un ayay isku arkaan afka oo soo shiira subaxii. Su'aasha waxay tahay maxaa sababa, maxaana lagu daaweyn karaa? Haddaba muuqaalkan hadduu ku soo gaaro, fadlan noo laagareey, asxaabtaada la wadaag. Haddii aad noogu cusub tahayna soo dhawow oo subscribe noo saar. Aad baad u mahadsantahay. maxaa sababa? waxaa jira dhowr arrimood oo sababa in subaxii uu afka soo shiiro, balse laba arrimood ee ugu waaweyn waa afka oo qalalan iyo in qofka afka si fiican u cadiyeysan. Aan ku hormarno, haddii aad tahay qof si wanaagsan u cadiyeysta, welina afka shiirkiisa uu ku dhibayo subaxii, haddana waxaad u badan tahay in habeenkii uu afkaaga qalalo. Candhuuftu waxay habeenkii mas'uul ka tahay in afka ay ka saarto jeermiska xun ee sababa afurka. Haddaba xilliga hurdada candhuufta waa ay yaraataa. Dadka ay ka wada dhamaata ee afkooda qalalo waxay la soo toosaan subaxii afkooda shiiray. Sidoo kale waxaa jira daawooyin sababa in uu qofka afka ka uro. caday la'aanta iyo nadaafad xumada. In qofka uusan si wanaagsan u cadiyeysan waa sababta kale ee keenta afka oo soo uro subaxii. Afka waa meesha ay ka quutaan jeermisyada qaar. haddii aadan si wanaagsan u cadiyeysan, cuntada ku harta ee dhex gasha ilkaha iyo luuqyada carabka waxay sababaan in urka afka qaarkiis uu si xun u soo uro. jeermiska afka ku jira ayaa dhex galaya cuntadaasi iyo ciridka, kadibna isku milinkaas waxaa ka dhasha afur. xitaa marka aad xoogaa aamusnaato, waxaad isku arki kartaa shiir aan loo dulqaadan karin. caday la'aanta waxay sidoo kale sababtaa cudurro afka ku dhaca iyo ilkaha oo jajaba, ciridka oo dhammaada iyo afka oo booga badan yeesha. mararka qaar xanuunadaasi way adag tahay in la daaweeyo. haddaba si fiican u cadiyeyso. cunidda raashinka qaar waxa aad jidhkaaga gelinayso waxay sababi karaan afurka subaxii. in habeenkii inta aadan seexan ka hor aad cunto raashin urta kulul leh sida toonta, yaanyada cayriinka ah iyo kuwa la midka ah waxay sababi karaan afka oo soo shiira subaxii. xitaa haddii aad cadiyeysato, waa suuragal in shiirkaas uusan kaa bixin. sidoo kale tubaakada ama sigaarka. isticmaalka sigaarka iyo tubaakada ayaa sidoo kale sababa afurka. sidoo kale waxay sababi karaan afka oo iska soo shiira xilli walbaba. dhammaan maandooriyaasha waxay sababaan af qalal, taasoo dhalinaysa in uu afka ka uro qofka subaxii. sidoo kale waxaa jira xanuun ama cudur macquul ay tahay inuu sababo afurkaas. geed dadka qaba xanuunka gaaska gastrointestinal reflux disease ama dadka qaba xanuunada qaar sida laabjeexa, waxaa suuragal ah in afkoodu soo shiiro subaxii. sababtu waxay tahay in waxa caloosha ka hurinayo ay dib ugu soo celiyaan cuntada kadib sababaan shiir. sidee loo daaweyn karaa? inta badan afurka subaxii waa la daaweyn karaa. waxaa ka mid ah adigoo gurigaaga jooga balse nadaafadda ku dadaalayo, iyo in aad beddesho habka aad u nooshahay. in aad badiso cadayga waa xalka ugu wanaagsan uguna waqtiga dheer aad uga hortagi karto afurka. waxaad cadiyeysan kartaa subaxii iyo habeenkii ka hor inta aadan seexan. hal mar oo maalintii ah in aad ku darto waa ay wanaagsan tahay. in aad sidaas samayso waxay kaa caawinaysaa in raashinka afka ku haray uu bannaanka u soo baxo, sidoo kale si wanaagsan aad u luqluqato. haddii aad tahay qof balwad leh sida sigaarka iyo tubaakada, si degdeg leh waxaan kaaga codsanayaa ama kula talinayaa inaad iskaga joojiso. xanjada aan sokorta lahayn isticmaalkeeda wuu kaa caawin karaa. waa haddii aad tahay qof muddo kadib mar afkiisa urayo. hana ilaawin inaad dhakhtarkaaga aad weydiiso daaweyn xal weyn u noqon kara arrintaasi, sida nadiifinta ciridka, ilkaha, buuxinta meelaha bannaan ee cuntada ay geli karaan. arrimaha qaar waxay u baahan yihiin in qalliin lagu sameeyo si xal waar loo helo. taa waxaad kaga badbaadi kartaa inta aadan xaaladaasi xumaanta aad gelin inaad ka hortagto
aad isku dadaasho nadaafadaada. dadka gaaska qaba dadka xanuunka gaaska qaba dhakhtarkaaga weydiiso inuu ku siiyo daawo yareynayso in habeenkii uu gaas kugu kaco oo cuntadii ay dib kugu soo laabato. sidoo kale dadka qaar waxaan kula talinayaa in ay si toosan oo kor ah u seexdaan barkintana dheeraystaan si looga hortago in cuntadii ay soo labalaabanto ama ay cuntadii kusoo gadoonto. sidee looga hortagi karaa cudurkan af-urka ee subaxii? intaan loo baahan daaweyn waxaa wanaagsan in marka horeba aad ka hortagto arrintaasi. waxaad cunayso iyo wixii afkaaga galaya waa muhiim inaad ogaato. sidoo kale inta aadan seexan habeenkii biyo badan cab. taa waxay kaa caawinaysaa in afkaaga uusan qalalin wayna ka hortagaysaa afshiirka subaxii. ka fogow cuntada shiirka kulul leh ee aad habeenkii cunto sida toonta, yaanyada iyo kafeega xitaa kale. mar hadday galab noqoto, cuntada caafimaadka leh ee isu dheelitiran waa midda ugu wanaagsan ee caafimaadka guud iyo carafta afka u leh. iska daa maandooriyaasha waxay ahaadaanba qaad, shiishad, tubaako, sigaarka iyo wixii la halmaalaba. haddaba muuqaalkan hadduu ku soo gaaro fadlan noo like gareey, asxaabtaadana la wadaag. haddii aad noogu cusub tahayna waan ku soo dhaweynaynaa oo subscribe noo saar. aad baad u mahadsan tahay.